سؤال أنا ربع إنه كويديو بقول جيلة يبقول أريا يبقول لقى يبقول فردا ما قاعد في الصومال يقول ترى إبان ربع ترى ده بقول يا أنا جوا قانا كلام كسي بقول نف لقى وحكلام مو قرنا يعني كتاس ها بقول نف لقى مثل بقول نف جيلة أما بقول نف معناها فردا بس ها وحكلام مو قرنا يعني ما شاء الله يا بقول جيلة يبقول أريا يبقول فردا في الصومال وحلا يقول هذا محربا محين تمر كل شيء يا في الصومال بقول الله بقول الله ما يمد ولا بوحليه مقعو قارة مقعو قارة برت ما قام تستكل يوي أرجع كبلا أرجع حين أري إن فردها بقول كذا فردها داس كتير مشي كذا لكن جيلا سيرو كلا سيني بقول جيلا أي الله أمانة لا أنا بقول كوي يبقول أريا يبقول الله يبقول فردا محربا يدير كل شيء كتير أنا في الصومال هان Soomaalidu waxay u taqaanaa boqol tiro geelu waa boqol tiro arigu waa boqol tiro loodu waa boqol tiro sidaas aan u garanay yani geelku waa hal ul yani erigana waa hal ul loodana waa hal ul ariga waxaa la dhahaa tira ariya geela waxaa la dhahaa ul fardahana waxaa la dhahaa xayn fardaa arigu waa xayn geelu waa kontameeyo konta lama rabay waa boqol baa laga rabaa waa tira ariya iyo boqol geela iyo riti baar qaba iyo baraag iyo maxaan ku dhahaa wax kala ma haynaa boqol geela iyo boqol ariya iyo boqol lo'a iyo boqol fardaa waxa af Soomaali lagu yiraahdaa la rabaa boqol geel waa geel loona waa lo arna waa ari dameerna waa dameer ay jaw kalena ma tirada la rabaa de ay tirada maxay tahay tirada ninka boqol haysto boqol waa haystaa sagarta ma ninkii ariga konton haysta maya konton saa maaha waxa la haysta waxa laga hadlayaa boqol geel oo isku xidhan magaca af Soomaaliga lagu yiraahdo boqol ari oo isku xidhan magaca af Soomaaliga lagu yiraahdo boqol faras iyo boqol lo'a taasana xabba kama sheegi kari boqol geela iyo boqol ariya iyo boqol lo'a iyo boqol farda su'aasha af Soomaali waxa lagu yiraahdo tiradooda saxda ah tirada saxda waa ari waa boqol ari af Soomaali taloo ma qanaan boqol ari loo qanaa boqol diin le waay boqol faras le waay asaas intaas le ya aba boqol geela iyo boqol ariya iyo boqol lo'a iyo boqol farda waxa lagu yiraahdo ilaa boqol af Soomaaliga saxda waxa lagu yiraahdo tiradooda geela waa boqol geela waa farsahana waa boqol faras erigana waa boqol ari ah loodana waa boqol lo ah magac kale ma u taqaanayo af Soomaaliya maya waxaa jirta geel waaweyn oo iskina iyo geel yaryar geela waaweyn oo waxaa la yidhaha iskin midka yar waxaa la yidhaha aaran midka yaryar waxaa la yidhaha nirgaa kuwa yaryar nirga waa maasha allah waa isku dayday boqol geela iyo boqol ariya boqol lo'a iyo boqol farda waxa lagu yiraahdo af Soomaali maxay tahay boqolkaas horta aan ku sheego farda wali ma aanay koode laakiin haddaan ka hadlo geela boqol kalaad waxaa loo yaqaanaa boodin loodana boqolkeeda maxaa la jeesha loodaane hadda waxaa loo yaqaanaa maxaa la jeeda fadhi ama hedba arigana ama loo yaqaanaa hal ul boqolka sidaas aan u fahmay maasha Allah isku dayday boqol geela iyo boqol lo'a iyo boqol farda iyo boqol ariya waxa rabaa waxa lagu yiraahdo boqolkaas af Soomaaliya boqolka horta geela dad weydiiso boqolka neef geela waxaa la dhahaa ishkin inaan u aqaan boqolka arigana waxaa la dhahaa tira aru qofkaas leeyahay ama ul ari walba suu yaqaan loodana waxaa la dhahaa saas oo kale iyadana waa ishkin fardana de Soomaalidu kuma badna dhaqashadiis
saasmu marka fardaha ma u malaynay qoys Soomaali oo 10 gaari karaan laakiin qoys ma wax laga hadlaya 100 faras magac lagu yiraahdo waxaan u malaynayaa 100 faras qoys Soomaali oo anigu dadkii hore ma malaynaya xasan Cabdulla xasan iyo xilligiisii kulli ma arkin wax ka sheekeynaya 100 neef oo 100 maxaa ka wada farda ah laakiin waxaan u malaynaya xilligii bahalkii oo ahayn